iyadoo maalin uu ka hor uu isa soo dhiibay Cabdiwahaab Axmed Maxamed oo kamid ahaa maleeshiyaadka gobolkoodu dhacay ee Al-Shabaab sidoo kalena ay jiraan kuwa iyaguna iska dhiibay degmooyin badan oo dalka ayaa waxaa sidoo kale isku soo dhiibay ciidanka laamaha ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya degmada Garbaharey Yuusuf Axmed Cadow oo muddo 6 sano ka tirsanaa maleeshiyaadka ugu soo Al-Shabaab Yuusuf Axmed Cadow ayaa sheegay inuu isaga soo tagay maleeshiyada Al-Shabaab una doonayo inay madaxda dowladda iyo sidoo kale bulshooyinka Soomaaliyeed cafis u fidiyaan magacaygu waa Yuusuf Axmed Cadow ka imaaday shabaab degmada Tuulburaaqo kadib markaan la soo xiriiray maamulka degmada Garbaharey ee gobolka Gedo ka codsadayna in la cafiyo ana ka noqdo kana tanaasulo barnaamijkii iyo shaqooyinka noo dhaxeeyay shaqadeedana waxay ahayd ciidamada fasaanta ka tirsanaa kadib markii aan mataqaanay barnaamijkaas ka soo tanaasulay waxaan la soo xiriiray maamulka degmada Garbaharey ee gobolka Gedo si wacan oo liisoo dhaweeyay si sharaf badan muddo 6 sano la joogo maxaa kugu dhaliyay ilaa isaga soo tagto shabaab iskuna soo dhiibtay ciidamada federaalka Soomaaliya waxay u dhalisay inaan ka soo tago inaan arkay inaan mataqaanay dan iyo mid diineed iyo mid dalba igu jirin meesha aan joogo kadib markaas aan la soo xiriiray maamulka gobolka sidaas aan ku imaaday waana saan ugu soo tanaasulo ugu soo tagay marka horeeto dib dambana inaan ayaga u sii milacsaday mise wax barnaamij ayaga shaqo ku leeyihiin aan faraha la galin insha Allah ma rajayn doono waxayna ay ra'iisul wasaare dhamaan saraakiisha dawladda waxaan ka codsanayaa cafis balaaran in la siiyo insha Allah hadii la yiraahdo saasan ka rajaynaa inay cafiyaan aan ka rajaynaa insha Allah hadii la yiraahdo waxaan ka codsan lahaa horta in qofka xigta tabanaya oo iska cafiyo mana jirto cid hadda aniga shakhsi ahaan tax ka galay u eedeynaysa inaysan jirin baan rajaynaa insha Allah shacabku wanaag ma dhaxmaray waxumaana dhaxmaray ugu dambeyntii ayaa waxaa dhankiisa ka warbixiyay taliyaha amniga degmada Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo Siyaad Cagalaab أنا سيد رحمن برغلا ليني يغني سيد عقلاب أنا ملح أبني قدك ماذا قرباري حنا سمعنا حرير بدن رك بدن وفجر يوسف ولا يغني يسعد يا نيانك سو الريبة إتكستو شاب كسب بحيسو ونيانك سكي ماني سنة حوفين إن دعم فرن مرة مركنا الحريرين تلاقي كأنك نويا اللي أما دولة Soomaaliya ama tan maamul goboleedkaba ee isku wacid kasto ka soo noqonayso in loo fidiyo gacmo furan oo la soo dhaweeyo waa amiirta ayada baan qaadanay oo ku shaqeynay waxaan ku soo dhaweynay meeshan ninka la yiraahdo Yuusuf soo ku sheegay wax dhib ah hadda oo la kulmay malahan gacmo furan bal u soo dhaweeyay waliis buu imaaday wajiga fiicnaa oo ku soo aaday oo nimanka nabadiyada ahaa qawriista oo soo baxay wanaageedii uu noogu imaaday meelaha oo hortagnay meel magaalada ka baxsan baa waxaan ku sheegayaa ninkala warsame qaab badan oo annaka loo tababaray oo tababaran loo sii jirto marka annaka loo xiriiro iska baadna dadka waxaan ku aadnaa qorshooyin hadda aan loo baahnayn in laga sheego miidiyaha oo tababaran loo siiyay tababarada ayaga meesha ku aadnay ninkaan oo hortagnay iyo nimankii ka soo horeeyay qaabkaasna aan ku keenay meeshan warsame Xaaji Faarax raadiyaha iyo TV-ga dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed degmada Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo